waxay ahayd ciyaar weyn kuwaas oo u dhexeysa Arsenal iyo Chelsea. Xasuuqii kooxda Blues iyo xadreyntii tiimka Gunners. Waxaa idiin soo jeedin doona saaxiibada Sadiq Wadani. Arsenal 2 Chelsea 0 waa natiijadii ciyaarta. Goolkii koowaad ee ciyaarta waxaa daqiiqadii 14aad dhaliyay Alexander Lacazette, waxaana 39 daqiiqo 2-0 ka dhigay kabtan Laurent Koscielny. Xadreyntii kooxda Gunners ayaa bilaabatay xilli ay Chelsea calool xumo dilayso. Sawiradii la yaabka lahaa waxaa ka mid ah Aubameyang oo dhulka cunsiiyay Eden Hazard, kabtan Laurent Koscielny oo soo bandhigay bandhig cajiib ah oo aad loola dhacay. Tiimka Gunners oo ku feegaartay kuna farxalatay dhibcihii kooxda Chelsea. Alexander Lacazette oo u muujiyay macalinka Gunners inuu yahay weeraryahan aad u anfacaya. Eden Hazard oo galay shabaqa kubadjoojiyaha kooxda Arsenal ee Matteo Guendouzi. Lucas Torreira oo xil weyn iska saaray dhaqdhaqaaqa Eden Hazard, oo saashay inay Arsenal si fudud ku dhaafto kooxda Chelsea.